بسم الله الرحمن الرحيم maanta waa kal fadhigeennii koobaad waxaanu ansixinaynaa ajandaheennii koobaad ugu horeeyay hal is dhageysto mudanayaal والله فاكو جرا xildhibaanadina oo shaqeynayaan taawada waxaan meel kala aamusiyeen mar labaad baan ku celinayaa hal la aamuso golaha la dhageysto hal la dhageystaan bilaay waxay gudoomiye aamus waxa isugu xildhibaanada kala qaylinayso wadays iyaga baa aamusi meega naga wanaagsan oo golaha daji mudane iyadoo socota qeyladii buu ku dhex faraajintaa mudane ka daamay waxaan baahan buuqa iyo qaylada iyo waxaan ka taagan waa sida meeshu waxaan kacsi ku filan ku soo deynaa xalagaas anagu hadii naga qeyladii buu qameeray aan qaylay buuqdeena dadkana musiyo way wallahi bulaabsan ka madaxa kaga fadhiyo billah naga qaylada bal waxa meesha ka dhacaya garta yaa adiga dhex raacay dadkii aan dhex raacay balnada waxa meesha buuqiyo qaylo ka socday dad waaweyn lama musiin karayaan hal is dhageysto aamusa hal aamus gudaajan Allahu akbar ashhadu an la قدام حرام تقول يا دكتور كلام سايد يا كلام ولا قال قال نحن امس مجيب نقول امس يا كلام قدام يوم مساسب ما طايرته ورته مساسب ما طاح والله قصصي اجنده سيسنو كان صح امس من والله لا امسي ما امس يا miiska anu kala jibin miiska golaha madal dawladda ku dhashaday lama sixin ya guud mikrofoonada kala jibin naga tagoro طلع fadlan dagaalka hal la joojiyo hal is dhageysto hal la dhageysto gudoomiye aamusa gudoomiye Allah xayawaan naam aamusa hal aamus istajiya gudoomiye aynu dhageysano xildhibaanaynu nahay dad ummadii soo dooratay oo shaqadan u dhiibataynu nahay gudoomiye shalay markuu nin waliba fagaaraha taagnaa uu soo baxayay uu codka doonayay miyaanu lahayn kuwii hore waxba may qaban way iska fadhiyeen anaga wax idin qabanayna maantana way naga fadhi kala gasla dhacnade shaqadii iyo wixii leeynaga filayeen umada u qabanay inuu soo ballan qaadanay meel markuu maanta lagu kala dhex jiri lahaa been iyagii la kala jiidi lahaa golahani ceeb ma leh waa golo dawladeed mar walba waxa magaca ka xumeeya ama magaca u hagaajiya kolba cidii dadkaasi soo dooratay meesha keento mudana gudoomiye waxaan ku sheegayaa qaladka oo dhan waxa iska le bulshada inaga ilaahay samada inaga mu doorano kitaab inagu soo deginayno xildhibaan noqono dad baa cadeed inoo taagnaa oo ina soo doortay qaladka dadkana loo ina soo doortay markaynu soo baxnay aynu halkii la doonayay nimid aynu isku dul qabsanay inay dhadaan shaqadan idin diranay tan ma hay shaqadan idin diranay hagaagsaneed qabta miyaan ahayn iyagii baa kala qaybsanoo xildhibaanka mid waliba xildhibaanka reer hebel iyagii baa qulun dadka la dhex socda doonayana in wax loo qabto mudana gudoomiye waxaynu nahay gisaasad faynuusku bariga hore wuxuu lahaa gisaasad habeen oo dhan markuu ku shidnaado qofka iska leh markii habeen dambe kala gaadho uu iska sifeynay uu iska hagaajinay haddii kala waxba arki maayo sidaas oo kale inuu nahay oo dadkan inuu u shaqeynaa golahani waa muraayad halka gisaasadaas oo kale ku jira walkii wadanka laga dhex arkayay dadku iska dhex arkayeen hadaanay markaynu islayneen isku dul qabsanay oo dhan iyagoo midaysan war shaqada idin diranay caynkan ma shaqada idin diranay qabta oo ay xildhibaan kala raacaan shalay toolaalka markii isku diranay dhowrkii xildhibaan iska fadhiyay ee xishooday markii golaha laga dareeray dadweynuhu falanqaynta ay soo celiyeen waxa ay xildhibaanada halka fadhiya way baqanayeen oo feedna ma yaqaanaan waxna ma yaqaanaan dadkii ixtiraamka iyo maamuuska sugayay aan golaha ku dhex dagaalamin marka la yiraahdo ma garanayaan kalfadhigii labaad in gudoomiye soo noqonay iyaga ugu horeeyay wixii qaska bilaabo gambay naga dhigeen Allah baahana waa mid naf lagama tagin kuwii maanta la kala jiijidi lahaa beenna askartii amniga loo diray ciidankii amniga loo diray maatada iyo inay ilaaliyaan inagii mas'uuliyiinta hay lagu kala dhex jiraan kolba laba dhan u jiiyaan oo dadweynuhu fadeexadeen iyo ceebteena daawado maral aliya markii halkaas ku duldilana dibadda intaynu baxno sidii ambalaaska wada qaylino
halkan ceebteena dhuuman lahayn inagoo arrin isku raacayna arki maysid inagoo ajanda isku raacayna arki maysid waxa kale isku raacnaa waa hiil iyo in halka xildhibaan ku dhuftaan waan raacay kana ku dhuftay shaqadeena maxay tahay waxa kale oo dhan balka kaalay ee golaha u yaala shaqadeena waa gacanteenu taagnay gacanteenu dajino muslimiin ku taagir laanay kula jikir laanay rag baa kuliga lix subaxnimo kala oo ka baxa afarta galabnimo hadal iyo yahanaan lagu arag adduunyo mid kale sharci buu leeyahay garoomada kubadda hadaad aragto qofka garoonka qalad ka dhex sameeya ganaax buu leeyahay intaas oo ciyaaradu ka maqnaad uu leeyahay lacag ganaax buu leeyahay halkaas inuu isku wada dilay ka qofkan golahan qaska ka dhex wada ee waxaan bilaabay hebel dilaya ama waxaan sameynaya waxa loo arki laayay ganaax ku dhaca xukun u yimaada waaqalkii sharci dejinta madaxweyne ma maamulo wasiir ma maamulo cid kalena ma maamusho inuu haday qalkii ugu shaqada badnaa xaalad degdeg ah haday timaado ama xaalad ba timaado kulan degdeg la isku yeero sida dagaal baa la isugu yeeraya hani qaladkan oo dhan waxa iskala dadweynaha hadayna oranayaan war shaqada idin dhibanay tan ma hee shaqadayda haagsan idin dhibanay qabtaynu ka doonaynay haday iyaga yihiin awr kiraale oo kareysan siyaas mar walba nin siyaasi ah kubsanaya oo magac iyo xil doonaya hebel 40 sanadood ilaa 100 sano ugu gaartay inta shayga qulunka qabyaalada aan isku dhex saari karlaana gudana gudoomi wadalka adduunka ay tahay wanaag yaa aqoonsaday min nabiga ku dhex nool oo dibadda uga yimid soo dad isku tagay oo tashaday oo wixii dantooda ka wada shaqeeyay soo ma wixii kale ka tanaasulay maanta kuwii golihii sharci dejinta fadhina ceebteeni cid walba way gaadhay askana in gooniya wada mudana gudoomiye waxba qaran maayo inuu ka wahay hadayna aan lahayn maanta cidina ku dhex jirta cidina kala qabata cidina soo kala gaadha oo dadkii waxay u qabanayeen gama filayaan ba waxaad mudayna dagaalkeena taawanayeen inay qabaayil kala safanayaan nin walba reerkoodu maalintu soo baxayay oday iyo caaqil iyo suldaan iyo sheekh umay kala hadhin way soo calaamad saareen halkan ay keeneen waa nin magac huwan cid ka socda mar laaliye markuu wax qaldu golaha qaso cid walba qaso sidii markii hore ugu soo baxeen ee meel walba ula taagnaayeen ee fagaar walba ula taagnaayeen miyay inta imika soo kacaan oo dhakir laayeen war waxaan ku meeshan ku geysanay waxaan ma magacayga bad sida taay ama meeshan iska eeg ama qaskan jooji mudana gudoomiye waxay meesha la joogna mare maanta kambani ama meel shaqayso magaalada kamid ah haday dadweynaha qiimaan macquul ahayn ama waxaan sidii ahayn si kaga dhigto inaga hadkuu laga xisaabtamay wuxuu dajinay iyaga la hadli lahaa dadkii marka yaabeen inay isku dul qabsaneen iyagu isku dul dilay ay naftoodi noqotay intay isyar urursadaan inay shirkadni leeyahay xafiis intii hor istaagaan inay raax xafiis fadhiyaan naga daay xaqoodii ka bariya markii isku dul qabsaneen inagu fariis dhacay mid maalin kaliya darbijiisa kaga hadla golaha masaakiinta kaga hadlo danyarta kaga hadlo kulba ajinteenu gacanta u taagna aynu uba taagnabe ma muslimiin ku fadhi karlaan shaygan ugu qaldan ee dhexdeena ka jiraana mudana gudoomiye wuxuu yahay shayga qabyaalada ah dadkiina soo doortayna aqli male waa urkiraala siyaasi u kareysan oo kolban inuu kubsanayo xataa qaar ku soo laba noqonayaan golahani magac iyo maamuus buu leeyahay sharaf buu leeyahay sanadii shalay toole meel walba kala haynun annaga xildhibaanada kale idin ka wanaagsanaan annaga wax idin qabani ministagaalna haddana u istilina mudana gudoomiye maanta haddii nin walba reer yahay maalin walba midkeen baa saxaafadda ka hadla xildhibaanada ka mid oo maalinba midda ka hadlo hadalku shalay yidhi uu qalday marka la inta dib u soo fadhiistay raalgelin bixinaya oo dadkii la yidhi wax qabta mas-uuliyiinta ahaa mudana maanta ama nin waliba duu leeyahay reer baana ama cid gaari leedahay reer buuya oo dadweynahaasi ummadda wax soo dooratay inuu waliba reerkooda maanta haw tago halkaas kaga tago wuxuu qabanaya haw qabta halkaas markuu yimaado xildhibaan qaran buu yahay ummadda oo dhan buu wuxuu qabanaya inaynu kala tagno inuu waliba cid leeyahay qabanaya haw qabto iyo inaynu xildhibaano qaran noqono inuu dalka horumar gaarsiino ummadda wax u qabanno wixii la inoo doortay aynu qabanno oo aynu noqono dad horumaray oo wax qabsaday oo ceebtana dadweynuhu maalin walba daawo